waxaana wanaagsan ku soo dhowaada qaybta saddexaad sheekada xiisaha badan dhimashan ka xiga ah inaan dib kuu soo jeclaado. sheekadan waxaa qoray daalac daarishood waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah gacal eyman. sheekadan waxaa janalka gacal eyman aad kala socon doontaan maalin walba jimcaha si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela. fadlan sabskrayb saar lana wadaag asxaabtaada. qaybta saddexaad ee sheekada ayaana ku bilaabanaysaa sida tan. ridwaani anisa markii la ogaaday in suuqa bakaaraha ay dhinac ka joogaan waxay go'aansadeen inay si deg dega uga baxsadaan magaalada muqdisho ayna aadaan dhinacay degmada afgooye. waxay karisteen xaajiyad nooca loo yaqaan qamsiin. baabuurta magaalada ka baxdoo dhan waxaa loo dhigay waardiye. waddooyinka waardiye adag ayaa saarnaa. waxay ahayd waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye. waddadaasi oo loo yaqaano ex control afgooye. ridwaan wuxuu ahaa nin taati ka badan. anisa ayuu ku amray inay xirato labisnin surwaal iyo shaati si muuqaal ahaan ugu ekaato nin. anisa waxay gaabisay timaheeda. dhar nin ayayna xiratay. sidoo kale jaakad ayay ka dulqaadatay shaatigae wadatay. uma eka markaan gabar. qofkii arkaa wuxuu moodayaa inay tahay nin. waxaa la soo gaaray isgooska ex control afgooye. gaariga ay saarnaayeen ayaa la istaajiyey. ciidanka waxay ka waayeen gaariga gudihiisa wax qaab naag u eg amba gabar. sidii ayayna ku baxsadeen labadooduba. habeennimo ayayna galeen degmada afgooye. anis iyo ridwaan weli waxaa ku taagan cabsi ah amaa laydin qabtaa oo laydin xiraa amba dhibaato kale laydiin geystaa. dhanka kale anis aabaheed waxa u tegay kitaab gaablow sixiro amba faaliya. wuxuuna ka codsaday inuu u fiiriyo una ogaado halka gabadhiisii ku sugan tahay. fadlan ha aaminin war sixirow, waa dembi iyo shirki. weligaana ha u dhowaanin, waa diinlaawe. qof ilaahay ka furtay ha ku farqa xihan. sixirlowgu wuxuu sheegay in gabadhiisa habeennimadaasiba ay joogto degmada afgooye. anis aabeed wuxuu soo kaxaystay habeenkii wixii uu awoodo ciidan ah iyo gawaarida dagaalka oo fara badan. markii uu soo gaaray afgooye isagii ciidankiisa waxay isqabteen ciidan hore u joogay degmadaasi, gaar ahaan kontaroolka degmada laga galo. labada ciidan ayaana isfahmi waa soo kala dhex galay, waxayna taasi keentay in markii dambe ay isku dhacaan rasaas is weedaarsadaan. ciidankii watay anis aabeed ayaana dib isaga soo laabtay ayagoon gaarin hadafkooda maadaama laga awood batay. markii waagu baryey ridwaan wuxuu ka war helay xabadihii xala dhacayay in ay ahaayeen weerar uu aabeed ku soo qaaday degmada afgooye, isaga oo damacsanaa inuu gacanta ku dhigo isaga iyo gabadhiisa. wuxuuna xaaladda la wadaagay anisa, waxaana la soo darsay walwal iyo murugo hor leh. anisa markii ay maqashay dhibaatadaasi dhacday ayay waxay qaab geeraara fariin ugu reebtay aabbaheed. aabbow, haddii aan kaa soo tegay asaagayga raadsaday, adduunka kolkuu ii iftiimi lahaa arxandaradan maxay ahayd. aayahayga ku noqon caqabad dulmiga iga daa. aroortan la joogiyo degmadan joogo dartaa baan ugu hayaami. argagax ha gelin nolosheeda aan ku tamashleeyo. aabbow macaanow, intaad iga dambayso maskaxdaada deji. aadanaha way kala nabad galaane aabbow i nabadgeli ayay tiri. qalbiis jecel saal kuma kala haraan. cadaadis kasta waa kuwa u beera. anis iyo ridwaan waxay ku heshiiyeen inay baxsadaan maadaama halkii ay joogeen la soo ogaaday. ridwaan jacaylku wuu qaba anisa waa mid dhaba oo lafaaya dhuuxa galay. saacad ma jirto ilaa qalbigiisa wuxuu soo xasuusiyaa anisa. laakiin ridwaan siduu aaminsan yahay markaan uma qalma anisa, waayo waa gabar ka soo jeeda qoys ladan haddana hubaysan. uma bacbac dhigi karo. mana ahan ridwaan nin khasaariya fursadaha qaaliga ah ee soo maray noloshiisa. wuxuu aaminsan yahay in meel ka baxsan magaalada muqdisho kula noolaan karo, noloshiisana uu dabaran karo. ridwaan wuu awooday inuu joogo goobtiisa shaqada, waxaana ku filnaa keliya inuu yidhaahdo aniga gabadhiina xiriir lama lihi mana rabi, waxay degantaha hoteelkaasi suuqa ku dhex yaala. laakiin ridwaan waxaa kala dan weynaa shaqadiisa. jaceylka baaxadda lagu qabaanisa waa mid u baahan wax kasta loo huro, waana xilliguu muujin lahaa kartidiisa iyo reeganimadiisa. waayo anisa intii dadaali karta way dadaashay. noloshan silaca ah dartiis ayayna u soo gashay. ridwaan anisa waxay ku heshiiyeen inay durba ka baxsadaan magaalada afgooye ayna aadaan dhinacay boosaaso si halkaasi uga sii taariibaan una aadaan dalka yaman ugana sii gudbaan sacuudiga. habeennimadii ayaa la jarmaaday, waxayna u baxsadeen dhinacay boosaaso. intii dhexda ku jireen safarkooda waxay la kulmeen caqabado adag ay ugu horreyso in la dhaco gaarigay saarnaayeen. waxayna gaareen magaalada boosaaso
iyagoo gacanta waxba ku hayn. waxaa u bilaabatay nolol adag. aniso ma haysato noloshii hore ee raaxada ahaa. waxay degan tahay guri buusbuus ah oon celin karin roobka. waxaa u sii dheer kuleelaha ka jira magaalada boosaaso. awal anisa waxay ahayd gabar inta badan isqurxisa, wax walbay u baahan tahay ay u diyaarsanaayeen. maanta waxaa ku adag inay iibsato saabuun iyo shaambo. nolosha bini aadamka ayaana ah marba xaalad, marna waa faraxad, marna waa silac. anisa noloshaa sidaa u qaxarka badan waxay ku qanacsan tahay wax kasta oo kala weyn nolosheeda in ridwaan ay la joogto, jeceylkeedan ay weheshanayso. ridwaan waa nin xamaaliya. wuxuu shaqo ka bilaabay dekedda magaalada boosaaso. wuxuu soo helo lacaga wuxuu faraqa u gelin jiray gacalisadiisa anisa. lacagaa uu soo shaqeeyo kuma filna labadooda, waxayna bilaabeen inay keediyaan si ay ugu taariibaan. anisa inta aysan la taariibin waxay ka codsatay ridwaan inay ismehersadaan, laakiin ridwaan uma arko xilligan meher arrin muhiima. wuxuu aaminsan yahay in isku guursan doonaan yeman markii ay ka gudbaan caqabadaha adag ee taariibka. anisa arrinkaasi way ka xumaatay, waxaana ku dhashay tuun ah inuusan ridwaan iyadu rabin. waxaa sidoo kale soo kala dhex galay khilaaf. anise waxay go'aansatay inay guursato ridwaan. ridwaan isna wuu diidan yahay xilligan lagu jiro dhibka iyo rafaadka inuu guur dhaco. anise markii dambe waxay u tanaasushay, waxayna qaadatay aragtida ridwaan. haddii laba qof midkood uusan roonaanin wax hagaagaya ma lah. guri dhisan haddii aad aragto wuxuu ku dhisan yahay dulqaad uu sameeyey mid ka mid a labada qofood ee isla joogta. sabarka waa u muhiim aayaha nolosha. haddii aad aragti la wadaagto qof aad jeceshahay, macnaheeda ma aha inaad guuldaraysatay, balse waxaa badbaadisay xiriir adag. reerka anisa weli kama uqowsan sidii ay u heli lahaayeen gabadhooda, waxayna markaan u muuqdaan kuwo soo dabcay. waxay bilaabeen inay ku soo qoraan wargeysyada ka soo baxay magaalada muqdisho in haddii anisa soo laabato la siinayo wixii ay rabto, nolol wanaagsanna ay ku jiri doonto. waxaana laga codsaday inay soo laabato. wargeysyada waxaay gaareen magaalada boosaaso, waxaana hor u sii qaatay taariibiyaal ku sii jeeda magaaladaasi. ridwaan waxaa u suuro gashay inuu helo fariintaasi, wuxuuna ula cararay gacalisadiisa, wuxuuna tusiyey hadallada dabacsan ee ku qornaa wargeyska oo u qornaa sida tan: iyadoo geeraara, dhalan waalidkii dhalay oo ku caasiyoobay baa tahay, danteed garad haddii aad tahay guriga kamaad cararteen, dulliyada kama daba orodeen oo wehel kama dhigateene, daafaha dalka inaad marban dhinac u cararto waa waxaan dani kuugu jirine, dadaal baan kula rabay iyo inaad facaada ka liidane, doqonkuugu dad maaha waa adigan iga doqonoobaye, damiir haddii aad leedahay talada waalidka ma diideene, duco haddaad iga rabto ka har inamada dulaysan, darajo ayaan kula rabaa aabbow iyo inaad heer gaartide, dulucda fariinteeda aabbow waa ii soo laabo oo ii soo laabo. laakiin anisa hadalkaasi ma rumaysan. waxay tiri, aabbahay aniga ayaa kaa aqaan, waa qorshe uu rabo inuu igu soo xerogeliyo, waana mid ka mid a farsamadaha uu ila ciyaarayo aabbahay. macaanow hadalka aabbahay haw dheg taagin, iska dhaaf, aniga ayaa kaa garanaya. la soco qaybta afraad sheekadan xisaab badan oo meel xasaasi ah maraysa. si sheekadan aad u hesho mar weliba subscribe saar janalka gacal ayman.